عرّي قلت أنا والله كبي حتى ولا أنا الله كل تجي وفيريي نلكي بنداري نلكي السنة وندار قلت وفيريي مساحة جودي يديك ساس وصاق كل السد يوكله أو قل هاي جدا حسوا فيريي أفتق لنوع جدا كنا فروا وين أو دي كذا يوحكوا قري وكتشعل هاي كامل مرمى وكحس دونا I love you baby sorry أيو جدا كسوا قبل marka ugu horeysa waan ka xumahay waxa dhacay inay ku saameysay dhibaatada dhacday arinta aniga iyo Soomaalida kale ee dalkan ku nool si isku mid ay noo saameysay ehelka gabadhan waan u tacsiyadeynaa sida aan wareysiga ka hor ku ballan qaaday ma sheegi doono magacaaga waxaad marka hore iga warantaa sida ay wax u dhaceen ee aad u aragtay sheekadu waxa dhacday aniga horta gabadha isku meel baan degnaa daris baan ahayn gabadha aniga waxaan deganaa qolada ugu horeeyaan degnaa iyaduna qolada ugu dambeeya degantahay ilaa uu naxariistay gabadhaas jimcihii anoo kubad ku maqan ayaa wax soo jimcihii baa soo laabtay kubada jimcihii tagay waan soo laabtay waxaan imaaday koodii habeenimo gurigaan imaaday marka waxaan arkay ninkaas oo banaanka istaagsan oo saqaansan oo cirka maraya haye bacdi wiilkii wuxuu ugu dhahay adigu wuxuu ugu dhahay guriga inaan tagaan rabaa macnaha banaanka maanta dhan adigu guriga ma joogin markaasaan ku dhahay saxa macaan inta badan ba islama socono kuma arkin maxaa dhacay haye markaasuu ugu dhahay waxa maahan maanta waan cabay saana suubiyay waan saxansanay muxuu suubiyay markaas dagaalka intuu dhicin ka hor weeyaan jimcihii weeyaan sabtiduu wax dili rabaa marka jimcihii wuxuu ugu dhahay gurigan tegaya banaanku fadhiya waa gartay guriga uu tagay gabadha caadi waan isku naqaanaa oo isla sheekaysan jirnay caadi adiga dir ahaan isku sheekaysan jirnay caadi dirs banaan wiilkii uu baxay guriga uu tagay 20 daqiiqo isagoo maqneen ayaa gabadhii ordaysa ay timaado guriga ay soo qarqaracdo waa galabtii jimcaha galabtii jimcaha haye maalinimada kadib maxaa dhacay kabacdi wuxuu qarqaracday albaabkan ka furay mise gabadhii way ooynaysaa haye maxay kugu tiri marka waxaan ku dhahay maxaa dhacay markaasay dhahday kaalay ninkan ma garanayo halkan taagan yahay wuxuu rabaa inuu dhaho dartiib qasabaan kuu fuulaya qasabaan waxa kuu sameynaya haddaad isiin weydid amba cunugaagan ka taraya amba aad isiin haye bacdi waan fiiriyay waan tagay ninkii meesha saaran waan la soo hadlay waan soo kaxeeyay uu soo raacay gurigaygaan keenay biyaa siiyay waan dejiyay cuntaan u kariyay wallahi waan dejiyay aniga lagu wiil kale xataa meeshii la degnay ma Soomaali baa labada wiil waxa weeye lagu wiil Afghanistan weeyaan haye bacdi waan dejiyay waan la hadlay kabacdi ninkii waan ka kari waayay wuxuu taagan yahay gurigayga tagay weeyaan naagteeda anaa qaba haye waa iska xaaskiisu weeyaan waxaan rabay in ay soo biso weeyaan guriga ku laabtay weeyaan ayuu tagnaa haye waan u sheegay waxa ku dhahay saxaafadda halkaas anaa u tagaaya la kala soo hadlaaya waxa sameysan ma fiicna anaa bal waxa iyadana dhibkeeda soo fiirinaya darsu haye gabadhii baan u tagay albaabkii iga furtay waxay u dhahday cali maanta dhibaataysa maanta aragtay ani maalin walba dhibaato ku qabay dhahday si wacan maalin walba guriga intuu igu yimaado uu soo cabo amba guriga ku cabo ayuu jiraa haye qofna uma sheegin boolisna uma dacweyn dadna kuma dacweyn haye marka adiga maxaad samaysay markaas anigana waa la hadlay iyadana waan dejiyay waan u sheekay waan dejiyay waan u sheegay wax ku dhahay ninkani nin fiyow maahan macnaha u shaarin wax sameynaya war maahan haye marka uu shaariyay wax sameynaya war maahan bal markuu fiyow britoole arurnimadeeda anaa ku keenaya britoole wala hadlaysaa haye waa subax aad balamaysaan waa subax sabtiga subax sabtida ahaa haye wiilkii waan kaxeeyay gurigaan geeyey uu seexday hadi sabtii subaxnimadeeda soo kacna markaa haye biyasiyay haddana cuntadii baan u kariyey wuu cunay isagoo markaan aan arkay inuu caadi yahay uu hadda uu ninka u fiyow yahay
ayaan kaxay waxaan ku dhahay bal orod u tago halkaa wata fadhida jaranjarta iyaduna fadhida wata jaranjarta fadhida la hadalo bal raali geliyo madax ka dhunko bal qaladkaaga dul saar nin ragaatee waxaad ii sheegtaa labadooda guriga ma wada deganaayeen iyadu labadooda way wada degnaayeen laakiin guriga iyadaa lahayd isagu dhinac kale u degnaa oo isla qaybaha dhismaha uu ka kooban yahay ah may qayb u jirtaa adi 4 kilomitir 4 kilomitir meel u jirto deganaa haye marka iyadana sharciga u raadinaysay oo macnaha way u dacwanaysay in ninkeeda ay iskuursadaan ay dhinacan doodka u qoraan inay iskuursadaan ay meel wala degi karaan isaga sharci mu haysan bila sharci waa loo diiday fara laga helay haye markaasuu baxay uu tegay iyagoo caadi oo isla sheekeysanaya meel oo fadhiyaan sheeda ka fiiriyey ay fadhiyaan marka arkayna isla sheekeysanaya waan ka tegay aniga waa gartay waan ka tegay guriga iska tegay cabaaratu waan ka baxay magaalada iska tegay guri kale oo saaxiibadayda iska tegay halkaasaan kaga maqnaa fiidkii 22 ka soo laabtay guriga waan baxay waan seexday 6 subaxnimo bal wax albaabka hore ka furay ma aqaani albaabka isoo qaraacay ma arag guriga aad deganta adiga gabadha gurigeeda ku deganaa gurigayga aan deganahay waxa weeye kuwan ugu horeeya kuwa ugu dambeeya degnaa waan gartay uu soo qaraacay waan furay albaabka ka furay markaasuu nin waxa weeyaan xasan oona sidii shalay ka dara haye marka muxuu kugu yiri markaasuu ii yimaado wuxuu dhahay adiga Soomaali adiga wiilka Soomaali adiga Soomaali banaanka soo baxay banaanka soo baxay gacantii qabtay markaasuu dhahay ina keen waa raacay halkii deganaayeen jikaduga marka qolkii waxa ay muuqdeen jikaduga haye kadib waxa arkay ninkii 3 dhalama u saaray 4 dhalo oo diinta iskaga dhigay oo lugaha iyo qamcaha oo isku gubay oo isku qorqoray magaca gabadha ilaahu naxariista يعني magaceeda aad isku qoray jirkiisa ku qoray isku qoray ma dhaawac qoyan buu ahaa oo dhiig leh mise wax hore ahayd dhaawac cusub buu ahaa marka uu isku qoray dadka u shidna xataa oo saarneed mindidii iyo oo saarneed oo dadku u saarna 9 buu u tagay halka wax lagu karsaday weeyaan 9 bal lambar uu ahaa mindi waa u saarneed saas isku qorqoray marka okay xagee marka uga qornaayeen maxaa ku qornaa labada lugood iyo halka camba ugu qornay marka uu waribo sida adiga tootu oo kale iskaga buuxay haye بعد حكوا دانيو محاكاسي ورسول magaceeda ma aragtaa waan jeclaa waan isku qoray kama maarmo iyadoo ma jecla markaas waxaan mooday marka inay hurdaan dad kala meesha in dadkii kala la degnaan meesha toogan ay hurdaan ban mooday haye wax ku dhaay bal kala banaanka soo bax banaanka ku shigsana banaanka cabaar waan dejiyay kursi waan fariisiyay waan la hadlay ani labadii wiil oo kale waan la hadlaynay kabacdi markuu 40 daqiiqo ka soo wareegtay ayuu wuxuu ugu dhahay gabadhii waan dilay ilaa oo naxariisto الله يرحمك وانت لك هو بنكسي هي aniga markaas ma aaminin macnaha wax suurtagalay lama noqon haye kadib maxaa dhacay baad waxa waan aamin waayniyo waska kaftameysa fariisto markaas intuu ugu dhaay wallahi waan kuuban ka sii ilaa uu naxariisto anaga markaas in soo yar aamin rabo ayuu rabin inuu la dagaalamo marka muxuu kula dagaalamayaa wallahi la dagaalamay xataa ma garanayo uu qabtay saaxiib uu dhahay saaxiib uu qabtay uu rabin inuu la kaco oo horsan yirido aday baxad amal uu la kaco كمان سكي له أوسيبتي وكنت فرستي واحد ولا واحد شيء سحمية مقصود على حاول والله وين دلي لو بدي بياخد عليه عاوي رجع يقمعي قبطة وان قبلنا واحد دميل أخد بولسك وعي أخد هاي ويل باخد بحصل في ربنا رونتي تاي سدا ويل وقع عشان هاي أيوه أنت ما قصت وقع أيوه ربي إنه نجف كذا هي كبعد ويل كأخد هاي حبت تيجي بالك بالكالي نلاقة وبل أنت ستهاي بنتي بل نلاقة هي ونلا qabtay booliskii baa noo yimaada markaa kadib maxay sameeyeen booliska markii soo yimaadeen intii booliska ay soo ku mashquulsanayeen soo yimaadeen ayaan u cararay aan qolkaas soo hubinay beentayna runtii haye waan cararay qolkii baan walaah kabi hataa walaa ana kulli tagay waan fiiriyay nalkii baan daaray nalkii dansanaa waan daaray qolkii waan furay waan fiiriyay misaxaakii gabadhii iyo dhig saas u soo qulqulaysa biyo kale marka ma dhulkay taalay mise sariirta dhulkay taalay dhulkii jiftay
haye wax dhaawac oo arki karto oo indhahaaga qaban kareen kuma muuqan marka laga reebo dhiigga oo qolqolaya gidaarka soo fiiriyay afarta dhinaco gidaarkana far waaweyn oo dhiiggeeda ayuu wuxuu ku qoray oon ku jeclahay kaama maarmo oon ku xisi doonaa I love you baby sorry ayuu gidaarka saa uga buuxiyey haye indhaha marka saas kuma si mashquulisa marka u fiiriyay waan ku daadegay booliskii oo uu wacay booliskii ambalaas u wacay isla markiiba soo koreen haye fiiriyeen ambalaasaas degdeg u timaada way fiiriyeen wax dhan naftu way ka baxday haye adiga dareenkaaga markaas u noqday aniga markaas niyo shoog baan qaaday waan shoogsanaa ilaa hadda wasaxa macaan waan shoogsanahay hadda waxa ay balansan kan adi caafimaadka la fiirinayo dadka inay caafimaad qabaan kale haye booliska ma ku wareysan adiga booliska hadda waan ka imaaday saakii wareysteen wixii xaqa u sheegay sida hadda kugu sheegay waan u sheegay iyo wixii dacwan u sheegay way wareysteen adi 3-4 saacadood bay haysteen 4 saacadood bay ku wareysanayeen 4 saacadood bay wareysanayeen waxaan galay 9kii waxaan ka soo baxay hadda 12kii waan ka soo baxay haye 3 saacadood hadallo uu kugu yiri oo aad xasuusan tahay ma jiraan marka laga soo tago in gabadheedii waa dilay uu ku yiri aan hayay ay wuxuu igu dhahay hadda isii deen weydid oo inaan baxsaan rabaa isii deen weydid waxa ku dilaya saaxiibaday amtida ku dilaysa adigana ma badbaadisay anigana waxa kuma mashquulin waan qabsa ani waxa maskaxda ma sii galin ani waxa ii cadad inaan arko booliska inay qabtaan aan qolka soo fiiriyo inay runtii tahay beenti tahay haddana anigana saamaca bal samee ma garanayo walaa waan ka xumahay waa arrin dabcan aad u adag marka qof xaalad noocaas uu goobjoog u ahaa ama uu arkay ehelkiina dhibaatada iyagana waxaan uga tacsiyeynayaa dhibka gaaray gabadha adigana waxaan kuu rajeynayaa insha allah inuu caafimaad ku siiyo boogahaagana uu kuu dhayo insha allah saaxib ilaa naxariisto wallahi saaxib ma ilaa hadda wallahi mustaaxan soo jeeda insha allah wallahi mustaaxan madaxa ya xanuunaya dibigayga waxa si baan ahay wallahi insha allah waxaan kuu rajeynayaa caafimaad naso caafimaadkaaga shaqeey hurdo fiican insha allah hurd khayr badan baan kuu rajeynayaa insha allah insha allah saaxib waa mahadsantahay